Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday soo dhawaada kusoo dhawaada IT Online Somali channelkeena. Runtii waxaynu bilaabi doonaa program yar oo aad u fudud oo loo yaqaano ama waxa loo yaqaano programming language-ka ama luqadaha computer-ka lagula hadlo loo yaqaano programming language-ka. Runtii arday badan ama dhalinyaro badan ba aad u xiiseysa. Marka qodobadan aan isla eegi doonaa haddii aan leedmo. insha Allah waxaan isticmaali doonaa application loo yaqaano Visual Studio programka loo yaqaano iyo luqadda loo yaqaano C# luqadaas aan isticmaali doonaa. sidoo kale qaybta database-kana waxaan isticmaali doonaa database-ka loo yaqaano SQL Server. waa maxay database-ka waxa uu ka hadli doonaa marka Visual Studio waa programka interface ku dhisano waxaan isticmaali doonaa iyo code-ka C# 2019 haddaad haysato 10 iyo wixii la midkaana okay weeyaan dhib ma laha. database-kana waxaan isticmaali doonaa haddii aan leedmo ama back endiga SQL Server 2014 mushkilad ma laha haddaad haysato 10 ama 13 ama 14 ama 15 ama 19 ba numberku macna sheegi maayo laakiin waa inaad haysataa waxa loo yaqaan Visual Studio iyo database SQL Server. casharadaynu qaadan doono waxa ugu horeyn doona insha Allah haddii aan leedmo inaynu la soo degno ama isla eegno halkee laga soo degaa Visual Studio iyo sidoo kale qaabka loogu shubto Visual Studio. sidoo kale waxaan isla arki doonaa qaabka loola soo dego iyo sida loogu shubo SQL Server-ka. intaa markaynu isla aragno insha Allah waxaan sameyn doonaa in interface-kiisa isla barano mid kasta hadday tahay Visual Studio iyo SQL Server-ka. sidoo kale waxaan baran doonaa waxa loo yaqaan toolska la isticmaalo toolska kala duwan ee loo isticmaalo Visual Studio. sidoo kale properties-kiisa astaamihiisa waxaas oo dhan baynu baran doonaa. ugu dambeynta waxaan sameyn doonaa simple project management system wuxuu doonaha noqdo oo aad u fudud oo aad ku fahmayso haddaad basic-ka fahanto uma baahnid in adiga iswadi karaya basic-ka wax kasta waa basic-ka waa aasaaska haddaad marka simple yar project yar fudud aad samayso inta kale aad iswadi doonto. slide-kan labaad baynu isla eegi doonaa haddii aan leedmo. waayahay taariikhda luqadda loo yaqaano C# program. harta waa maxay programming language intaasaynu isla eegi doonaa si guud. haddaad maqasho program is a set of instruction writing the program language of computer executive performance specific tasks solve and problem. wax kale maaha program waa amaro la qoray ama luqad amaraa oo la qoray macnaheedu programka dad baa sameeya cirka kama soo dhicin Windows-ka isticmaalayso application-yadaada operating system-yadaada calculator-ka WhatsApp-ka YouTube-ka anything oo noqdo program qof baa sameeyay marka waa program baa la oranayaa amaro ku socda halka click C example calculator-ka isticmaalayso program ama software application-yada kale browser-ka internet-ka booqanayso program kuwa game-ka aad ku ciyaarto program WhatsApp-ka aad kala hadasho dadka chatting-ka waa program marka dhammaan programyada waxa loo yaqaan program waa amaro ku shaqeynaya la soo qofkii soo sameeyay uu ku soo sameeyay marka sidaas samee haduu saayo qosaa samee. programming waa maxay marka programming waa maxay waa process-kii ama waa habkii of designing ama writing ama testing ama maintenance waa habkii code-ka loo qoriyo marka la qoriyo code-kii ama la sameynayo hawshii lagu guda jiro marxaladaas ayaa noqonaysa programming. marka waad maqashay waxaan programminaya hebel waa lasoo programming kaas waa maxay waxa programming macnaheedu waxa weeyaan waa marxaladii marka la qorayo code-ka la taskireenay la dayactirey code-ka marka ama upgrade ba lagu sameeyay marka programkeena. waa maxay programmer a person who write the code and create a software program. adiga laftigaagu waxaa tahay programmer marka waa qofkii waa person qora who write code creating software program waa qofka programmada sameeya ama qora marka adigu maanta waxaa tahay programmer maadaama aad kusoo biirisay fiilka programming-ka
ama fiilka programmingka waxaa tahay programmer markaa waxaa sameyn doontaa waa program waxaad programmin doontaa computerka luqadii kula hadlayay markaa weeyaan luqad markaa programmer waa person markaa waa qofkii adiga maqlay doctor engineer soo magacyada mad maqal macni waa maxay xirfadii uu bartay ayaa waxa loo markaa waa magac dhabid bay noqonaysaa markaa waxa weeyaan waa qofkii markuu programmingkii barto wixii uu program soo saarayo ee la odhanayo waa program. They use a programming language markaa qofkaas wuxuu isticmaalaa programming language to build si uu u dhiso application si uu u xaliyo markaa caqabad ama problem jiray markaa program maxaa loo soo saaraa dhibaato inuu ka saaro tusaale ahaan waxaad u baahan tahay program datadaada kuu collection kugu sameeya ama kuu ururiya ama kuu haya ama kuu manage gareeya macni dhibaatadii markii hore buug iyo qalin baad wax ku xisaabin jirtay laakiin marka software hesho ama application waad ka maarmaysaa already marka waa maxay xal buu keenay haddii waqti badan ay kaa qaadan jirtay maalintii inaad ama habeenkii inaad xisaabta xidho aad waqti ku luminaysa heblaayo intaasay qaatay kan kale maanta oo dhan aad xisaabtii kolba iska soo daba noqonaysay maxaa laga yaabaa dukaankii yaraa xaafadii inay 2 jeer 3 jeer 4 jeer 5 jeer maalintii kusoo noqoto halkaad kolba odhan lahayd kolba muxuu kaa qaatay imka already one time markaad geliso waa haysaa datadiis caawa xisaabta waxa laga qaatay xaaji hebel wuxuu kaa qaatay waad garanaysaa gurigii caasho wax kaa qaatay waad garanaysaa marka wuxuu fudeydiyay ama uu meesha ka saaray problem jiray markaa inaad isla markaaba totalka ogaata xisaabtaadii halkii markii hore ahayd inaad buug dheer soo qaatan maanta laba ugi 4 6 laba ku dhufo hadana inta aad ahayd inaad saacadan ama saacad ama saacadood aad ku sii jirto shaqadii way marka suu xaliyay marka dhibaato way programmerku marka waxaad u taagan tahay adigu problem suuq haysad xalinaysa haddana programka uu xalinayn problem maaha mid la isticmaali doono waa inuu xal ama u yahay problem uu xal u yahay marka way programming language is a set of rules syntax and keywords allow the human right to the instruction that the computer can understand and execute programming language waa luqadii isticmaalaysa hadaba waxa lagu waa ruleski ama syntaxki ama keywordski xarfiyaad isticmaalaysay kaasoo kuu ogolaanaya ama uu ogolaanaya humanka si ay u qoraan instruction amaro that computer can understand si computer ku fahmo marka waayo programkii aad qortay computerkeeni waynu fahansiinayna marka hebel haddii datada la soo geliyo xogta halka uu wareejiyo inta isku geey marka macnaheedu waxa weeyaan waa programming language marka example programming language waxaa kamid ah C# isticmaalna kamid ah Python baa kamid ah Java kamid ah JavaScript baa kamid ah C++ baa kamid ah ciidaas ka badan yihiin programming language ku lama soo koobi karo PHP baa kamid ah waxa weeyaan aad buu tiro badan yahay marka adigu taa doonto isticmaale luqadahaas ayaa noqonaya marka programming language marka inagu C# isticmaalna waxaan ka isticmaalna Visual Studio programkaas aynu ku isticmaalna IDE-ga waxaan ka isticmaalna luqadda C# loo yaqaan okay ninkana sameeyay marka horta C# waxa iska leh waxa laga keenay waa C program language ama C language uma laga keenay ninkana sameeyay marka waxay waxa shirkadda Microsoft iska lahayd marka shirkadda Microsoft ee operating system-kan Windows-ka ayaa iska lahayd marka way intaas waxaan filayaa in taariikhdeeda iyo ay kaga filantay marka maxaad ku sameyn kartaa haddii aad program C# barato console application baad ku sameyn kartaa basic waxaad ku sameyn kartaa basic desktop applicationska waxaad ku sameynaysaa web applicationska website-da ASP.NET kii oo kale gaming kii waad ku sameyn kartaa file manipulation data processing waa basic network software aad ku sameyn kartaa mathematical and logical problem solving baad ku sameyn kartaa macna waxyaabo badan ayaad ku sameyn kartaa haddii aad barato frameworks in la isticmaalo iyo taariikhihiisa weeyaan kana wax uga baahni marka intaasaynu kusoo koobinaa marka hordhici programka wuxuu ahaa marka insha Allah wixii ka dambeeyo wuxuu noqonayaa practical marka casharaduna waa intan ka gaagaabnaanaya hadal badan ma jiro shaqo badan waa la qabanaya marka shaqo la qabanaya hadalka waa la yareynaya marka waxa weyn IT-ga dad maqasho waa hadal yar iyo hawl badan macnaheedu in maanta oo dhan laga hadlo waxba
waxaa dhaantay inaynu programkii toos u galno la soo degno shaqadiina gacanta ka qabno. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.